anigu waxaan ku dhashay magaalada Boosaaso isla meeshaasna ayaan wax ku bartay maxaa la yiraahdaa jaamacadda Bariga Afrika baan ka baxay computer science-ka iyada ayaan maxaa la yiraahdaa waxbarashada ugu badan ka helay iyo maxaa la yiraahdaa anoo ka soo shaqeeyay si volunteer ah maxaa la yiraahdaa shirkadda Golis qaybteeda programming-ka waxaan ahay aasaasaha barnaamijka Who is Snap waa barnaamij la mid ah barnaamijyada caalamka ugu isticmaalka badan waxa uu la mid yahay sida Instagram-ka iyo Facebook-ka Twitter-ka oo kale waa social media barnaamijkan waxaan aasaasay sanadkan gudihiisa waxay u qaadatay waqti gaaraya inaan sameeyo barnaamijkan 6 bilood cidna kala ma kaashan anaa sameeyay dhalinyaro way jiraan caawi oo qaybta koorarka iyo waxaas laakiin intiisa ugu badan 95% anaa sameeyay ujeedada ugu weyn aan barnaamijkan u sameeyay waxay ahayd inaan bulshada Soomaaliyeed aan ka xaqabtirno maxaa la yiraahdaa barnaamijyadan social media caalamka jira isla markaasna aan tusno dad inay jiraan dhalinyaro hal abuur leh oo maxaa la yiraahdaa wadanka wax ku bartay isla markaana soo saari kara barnaamij la mid ah barnaamijyada caalamka ugu weyn ka jira barnaamijkan waqti badan dheer aan galiyay kadib waxa ay suurto gashay inaan hawada saaro haddana wuxuu hawada saaran yahay 3 week isla markaasina waxa isticmaala 5,000 oo qof dadka percentage-ka ku soo noqnoqda barnaamijkan isticmaalana waxa weeye 80 ilaa 85% barnaamijkan wuxuu ku fududeynayaa in aad sawirro soo galin kartid maxaa la yiraahdaa sidoo kale aad video soo galin kartid isla markaasina comment iyo reaction like iyo wax walba aad sameyn kartid isla markaas sidoo kale aad sameyn kartid maxaa la yiraahdaa message u diri kartid dadka barnaamijkan dhexdiisa ku jira isticmaala isagoo oo ka duwan barnaamijyadan kale ee social media hadda adduunka jira oo noocyo badan kaga duwan haday noqon lahayd xogta barnaamijkaas qof walba isticmaalaya inay tahay secure ama ay tahay encrypted maxaa la yiraahdaa wax ayna qof kale uusan arki karin ay tahay barnaamijkan inta ku guda jiray maxaa la yiraahdaa sameyntiisa iyo kicintiisa hawada inaan hawada saaro caqabadaha ugu weyn la kulmay waxa kamid ahaa dhanka financialka oo maxaa la yiraahdaa iyadoo aysan jirin shirkad weyn ama qof ganacsada oo weyn oo barnaamijkii maalgelinaya ama maxaa la yiraahdaa garabka ay macnaha barnaamijkaas inuu hirgalo waxaan aad u boorinayaa walaalkay Qaasim Seeraar oo soo saaray barnaamijka Who is Snap barnaamijkan waa barnaamij uu wiil Soomaaliyeed sameeyay sidaan ognahay dhammaan bulshada amba dadkan aadka aqoonta u leh Facebook-ga waxa sameeyay wiil waxbarashada ka dhacay Qaasim oo aqoon leh oo jaamacad ka baxay baa Who is Snap sameeyay isku mid ma qof walba oo Soomaaliya waxaan u baahanahay maanta hiil inuu barnaamijkan u gaaro 1 milyan si uu la barbar dhigmo barnaamijyada Facebook-ga Twitter-ka iyo barnaamijyada aadka bulshada isticmaasho wiilasha iyo gabdhaha firadada ah ee Soomaaliyeed ee social media aad u isticmaala waqtiga ku bixiya waxaan ka codsanaynaa anagoo u hiilinaa wiilkeena Soomaaliyeed ee naga dhashay jiirkeena inuu barnaamijkan u gaaro 1 milyan oo qof